عمها dadkaygo cunta dheeraad laga diro anka agarane ciidena hodanka mawsara kanayo beeraha masaracna عمها dadkaygo cunta dheeraad laga diro anka agarane ciidena hodanka mawsara kanayo beeraha masaracna بحيا بيرها مسرعنا عقلي قو شقيو عقدين مرة عقلي قو شقيو عقدين مرة عيد لقاقا بحيا بيرها مسرعنا إركو مركو عتيدو عادل كشبو انت بيها علسان عرف يا دبدها قلا بيرها مسرعنا إركو مركو عرتيدو عادل كشبو انت بيها علسان عرف يا دبدها قلا بيرها مسرعنا kulan wacan oo wanaagsan dhageystayaal iyo daawadayaal dhammaantiinba ku soo dhawaada barnaamij gaar ah oo aanu kaga hadlano wasiirka horumarinta wasaaradda beeraha jamhuuriyadda Soomaaliland oo ay weheliyaan barasaabka gobolka Awdal agaasimayaal kala duwan iyo mas'uuliyiin kale oo ka tirsan wasaaradda horumarinta beeraha iyo sanduuqa horumarinta Somaliland iyo hay'adda ADO ayaa kormeer 3 maalmood qaatay ku soo maray deegaanada kala duwan ee uu ka socdo mashruuca dhaqaalaynta ciidda iyo biyaha oo laga hirgeliyay degmooyinka Dila iyo degmada Xeego waxaana waftiga wasiirku hogaaminayay ay soo booqdeen goobaha kala duwan ee laga hirgelinayo mashaariicdaasi kala duwan oo dhinaca beeraha khuseeya iyadoo ay ku jiraan wadada isku xidha deegaanka Xeego iyo degmada Boorama oo aad u dhib badan oo aad muuqaaladaba ku daawan doontaan waxa kale oo iyaduna jirta meelo ay xajaahiya ka dilaaceen oo isku rogay dooxyo horena u ahaan jiray beero waxa kale oo wasiirka iyo waftigaasi la socday ee uu ka mid yahay barasaabka gobolka Awdal indhahooda ku soo arkeen meelo aanay hore u marin wasiiro hore iyo barasaab hore aanu tegin ayay soo booqdeen oo ah meel u xidhay waqtigii Ingiriisku joogay 1930 oo ku taala deegaanka Sabawanaag dhinaceeda ee Jaararoto waxa kale oo ay indhahooda ku soo arkeen beeraha la xidhay iyo biyo qabatinada kala duwan ee la sameeyay iyadoo dadaal loo gelayo sidii loola dagaalami lahaa dhulka go'ay ee jeexjeexmay ee ay beerihii isku bedeleen doox ama tog waxa kale oo barbar socda mashruucaasi dhaqaalaynta ciidda iyo biyaha barkado loo qodayo dadka deegaanada kala duwan ku nool iyo ballayo kala duwan waxaana wasiirka wasaaradda horumarinta beeraha jamhuuriyadda Somaliland injineer Cabdiqaadir Iimaan Warsame oo ay weheliyaan barasaabka gobolka Awdal Maxamed Axmed Caalin Timbaro iyo mas'uuliyiin kala duwan oo kamida wasaaradda horumarinta beeraha maayirka degmada Dila maayirka degmada Xeego Salaadiin iyo waxgarad kala duwan iyo mas'uulka ugu sareeya hay'adda ADO ee gobolkan Awdal Xasan
waxaanay dhammaantood ay ku arkeen in dadaal ballaadhan uu ka socdo deegaanada kala duwan ee mashruuca dhaqaalaynta ciidda iyo biyuhu ay ka wado wasaaradda horumarinta beeraha somalilan oo gacan ka helaysa sanduuqa horumarinta ee somalilan SDF iyo hay-adda ADO oo iyaguna fulinaya barnaamijkaasi beeraha wax lagaga qabanayo waxaana hormeerkii iyo qiimayntii uu sameynayay wasiirka iyo wafdiga la socda oo dhacay sida tani sallallahu ala sayidina mawlana maxamed wa ala alihi wa sahbihi wa sallam horta ilaahay baa mahadle maanta halkan waxa socda wasiirka horumarinta beeraha iyo yimid wuxuuna eegayaa mashruucii ay qabatay SDF ta iyo in joogan aado waxaan ka soo bilownay qabri daaweed kullay mashruucu wixii la qabtaaba wuxuu taraya haddii wax walba la yiraahdo ma garanaysaa waxa ma hayno hadday foosto biyo ku timaado inaad foostada biyaha qaadato ba horta waajiba marka kullay de mashruucana Somaliland waa mashruucii ugu weynaa maanta ay degmada dala heshay aad baan ugu mahadinaynaa de wasiirka iyo SDF taban leenahay wad mahadsantihiin halkan joogana waxa weeyaan kurtimadii qabri daaweed waan soo marnay dhul badan waan soo marnay maanta in kastoo jimca tahay haddana waxaan ku mahadinaynaa ilaahay baa mahadle wasiirka in jooga aado SDF dhammaan iyagoo socdo dad eegaya wixii dee la qabtay wax qabadkii la qabtay dadkana la weydiinayo sidaas bismillaahi raxmaani raxiim aad baan u mahadinaynaa aad baan u soo dhaweynaynaa wasiirka inuu noo yimaado aad baan u sugaynay annagu aad ahaan kulley hawshii waan ku dhex jirnaa shaqadii baan dee wadnay wasiir markaan bilaabanayna wasiirka hore nala joogay oo hawsha nala bilaabay imikana inaad noo timaado aad baan ugu faraxsannahay inaad aragto halkay wax marayaan oo kulley inkastoo wasaaradda beeruhu iyo SDF baa nala joogaan oo wax kastoon qabanaynaba aan goobjoog u wadanahay wada joogno aad baan kusoo dhaweynaynaa inaad noo timaado safarkaagii ugu horreeyey waa noo bilow kolleyta waad arki doontaa inkastoo maanta jimcaha oo shaqaalihii ay rawax ay fasax yihiin dadkii beeraleyda ahaa shaqaynayey dadkii kuwii barkadaha kuwii ka shaqaynayay soil bandiska kuwii ka shaqaynayay mataqaanaa barkadaha iyo musqulaha iyo mashruucu ballaaran yahay marka wasiir soo dhawow waan ku leenahay kusoo dhawow activitieskaan wadnay hawshaan wadnay horaba wasaaradda beeraha ula wadnay marka dee kulli waan wada joognaayo berri iyo saan dambeba hadalkeenu u dambeeyaa iminkase waan kugu soo dhaweynaynaa inaan maanta safarkii horreeya noo timaado marka ibraahim iyabaa sharaxay mashruuca siduu u socdo gadaalna waan ka hadli doonaa marka wasiir jaaraa horato iyo mataqaanaa dila ayaa mashruuca ka bilownay waa mashruuc waa laba degmo xeego iyo dil u ahaa xooggiisa waxaan ka bilownay labadan degmo oo labada degmada kale ee la yidhahdo xeego iyo badanbed iminka ayaan bilaabaynaa wixii kale ee tareerina iyo wixii baan hore u qabanay dadka mugti baan dhisnay marka kolleyta waan wada joognaa bismillahi raxmaani raxiim sidaa uu guddoomiyuhu sheegay waxaan joognaa kurtimihii oo jaaraa horato hoos imanaysa waa meeshii aan ka bilownay mashruuca qaybaha dhaqaalinta ciidda iyo biyaha halkaa inaga koraysa waa halkii aan ibroska waxa la yidhaaho ama bisha oo kale ah aan godadka yar u qabanaynay biyaha si markay biyaha oo xawligoodu hoos u dejisan yahay ay beerta soo galaan iminka beertii baan dhex joognaa beertana waxaa la samaynayaa naxaro sidaa inoo muuqata naxaradaasa iyaguna biyaha sii hakinaya wixii xagga ka soo dega naxaraduna waysa siinayaan biyihii si xagga hoose jeexjeexyaa jiro oo jeexjeexyada biyaha looga yareeyo iyagoo xawliga looga yareeyo marka mashruucu waa sidaas dhowr qaybood weeyaan dhaqaalinta ciiddiya biyuhu waa ibroskaas oo buuraha sintooda naxarada oo beeraha dhexdooda jeexjeexyada oo laga xidhayo iyo balliyo berkado marka waa mashruuc ballaadhan oo qaybtan iminkaan joognaayo waa qaybtii beer roobaadka marka beer roobaadka dalagyada laga qabanaya iyo waxyaabaha laga qabanaya waa sidaa iminka xaggii wax soo saarka beeraha iminka unbay wax bilaabmeen gugii dib way nooga dhacay siaad u ogeydeen karantiibaa iminka waxoogaa da'day intaa had arkaysaan waa intii karanta marka naxaradaas iyo waxa ay qabanayaan dee waad arkaysaan intii naxarka loo sameeyey wax soo saarkoodu siday isku bedelayaan bismillahi raxmaani raxiim alxamdulilahi rabbi alcaalamiin wasalaatu wasalaamu calaa sayidina maxamed wacala alihi wasaxbihi wasalam
wasiirka wasaaradda horumarinta beeraha agaasimaha waaxda qorsheynta gudoomiyaha degmada dila madaxa mashruuca SDF madaxa mashruuca ADO iyo communitygan jaaraha horato dhammaantiin assalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu wasiir halkan maanta aan joogno waxaa ka socda mashruuca SDF qorshaha koowaad ee wasaaraddu waxa weeyaan in la ilaaliyo oo la daryeelo ciiddii biyaha hantida keliya tawr ninka beeraleyda leeyahay waxa weeyaan waa ciidda iyo biyaha haddii labadaas loo daryeeli waayana wax soo hoos ku dhacaya marka mashruucan ujeedada ugu weyn oo uu ka shaqeeyo waxa weeyaan si loo daryeeli lahaa labadaas ciid iyo biyihii haddii labada la daryeelana wax soo saarka beeru kor buu kacayaa marka halkan waxaa inooga muuqda waxqabad fara badan oo ay qabteen mashruuca SDF oo ay fulinaysa hay'adda ADO oo gacanta badan ay ka geysteen community deegaanka mashruucan laba qaybood buu isugu jiraa qaybta xadhkaha iyo qaybta aynu dusha kusoo marnay ay beerogaaska intaba waxaa loo isticmaalay gacanta ujeedada laga leeyahay waxa weeyaan haddii maanta mishiin la keeno ama cagafyo la keeno halkan oo naxarada xidhaan berita ninka beeraleyda wuxuu sugayaa oo sugi doona haddii in cagafti mar labaad lagu xidho marka dadka waxay tababar ba u tahay inay qabsan karaan iyagu dadka beeraleydii haddii wax dhowto naxarkan ka jabo oo aanay si aanay u sugin mustaqbalka dambe inay cagaf u sugaan hay ka noqon lahayd baa waxaa lagu tababarayaa inay gacantooda ku qabsan karaan waxaa kaloo looga dan leeyahay in dhaqaaladuna kor loogu qaado halkii mashiinari keliya ta la gelin lahaa dhaqaalihii maanta community dib ugu noqday marka wasiir mashruucan waa mashruuc isugu jira markaa isku jira waxyaalaha faraha badan leh oo koobsanaya sidii loo kordhinaa wax soo saarka waxaan kuu soo dhaweynayaa wasiir saad kelmadda ugu tiraada الرحيم والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين marka hore waa ilaahay baa mahad leh marka labaadna waxaynu mahadnaqaynaa dadkii tacabkan fuliyey hadday tahay aado hadday tahay SDF oo labaduba gacan saar la leh wasaaradda horumarinta beeraha sidaynu u aragno mashruucan waxaan u arkayaa uun afar faa'iido leeyahay faa'iidada ugu horeyso in buuraha biyihii laga soo jebiyo oo biyihii kor intay ka yimaadaan iyagoo qunyar socda ay yimaadaan beertii yimaadaan ama faaligii oo waa buurta iyo sinta buurta ama labada buurood inta u dhaxaysa inaynu beerno marka biyihii beertii yimaadaana in loo xidho silikaa dheer ama ciiddaa dheer aynu arkayno si ay biyihii u fadhiistaan beerta gudaheedii tan saddexaadna waxa weeyaan inaynu dadkeennii barno inay iyaguna wax qabsadaan oo wax ku daraan oo contribution koodii ka qayb qaataan oo ah in labor intensive lagu sameeyo iyadoo weliba dhaqaala la siinayo inay iyagu xidhaan qoodigii isla markaana ay baroogaa ay qotaan ay baroogaas wuxuu faa'iido ka yahay inay biyihii fadhiistaan buurta ama salka hoostiisa ma dhowna aynu ku beerno caws buurtii ay noqoto buur qurux badan muhiimadda weynina waxa weeyaan in la kontroolo ciiddii naga baxaysay erosionkii xagga ciidda iyo biyihii labadaa inaynu kontroolo labadiiba waxaan u arkayaa inaynu ku guulaysanay mashruuc waa pilot project waa mashruuc development ama horumarineed hadda waxaynu kalnay horumarkii xukuumadda hadda jirta ee uu hogaaminayo muuse biixi cabdi waxaa ka go-an inay wax beerano beerashadii inaynu beerno marka waa inaynu dhulka u soo baxnaa magaalooyinkii ka soo baxnaa anigu wasiir ahaana waxaan u badnaan doonaa fiilka waxaan u badnaan doonaa inaan kontroolo waxaan tacabkan la geliyey ee xukuumaddu ay halkan usoo bartilmaamsaytaday ee layidhi dila iyo jaaraa horato iyo xeego hala geeyo layidhi waxay tahay waa meelihii beeraha roobka ugu wanaagsanaa haddaynu ku guulaysano insha allah bismillahi alkariim waynu ku guulaysan doonaa oo waxay u egtayba guushii hore waa inaynu aragnaa quruxdeeda halkaa waxaa aan ka arkaa oday xasan oo beertan leh oo isaguna inoo sheegay inuu shalay iyo maanta ay kala duwan tahay shalay uu cidlo dhex fadhiyey iyo tacab la-aan maantana aynu dhex fadhino beertiiyo quruxdaa leh waxaan ku dhiirinaynaa in beeraha kale dalkuna ku daydaan mashruucanna hadduu inoo fulo
wuu inoo fuli doonaa insha allah bismillaahi kariime oo 8 bilood baa u harsan 8 bilood ka bacdi inaynu fidino oo degmooyin kale ku fidino ayaa xukuumadda ka go'an dardaaranka madaxweynuhu waxa weeyaan wax beerta aan tacab gaadhnay aan barwaaqo gaadhnay marka tacabku iyo barwaaqadu way ishayaan marka hore tacab weeyaan marka dambana waa barwaaqo waxaan laynoo soo dhoofinayo inaynu ku dhoofino ayaynu ku tala jirnaa kolley bartilmaameedka iyagu wasaarad ahaana waxa weeyaan inaynu gaadhno sanadka soo socda hadduu ilaahay nafta inoo daayo roobabkuna inoo wanaagsanaadaan garantii waan aragnaa way wanaagsan tahay cirku maanta wuu wanaagsan yahay hadday roobka dayrta iyo guguna inoo wanaagsanaadaan waxaanu isku dayeynaa oo aanu ilaahayna la kaashanaynaa inaynu wax soo saar badan samayno oo inagu filan waad mahadsantihiin khaas ahaan guddoomiyaha degmada dila soo dhoweyntu noo sameeyey aad baan ugu mahadnaqayaa oday xasanna beertuu nagu soo dhoweeyey isagana aad baan ugu mahadnaqaynaa waxaanu leenahay tacabkaa lagu geliyey yaanu khasaarin yaanu inaga khasaarin weynaynaa wasiirka wasaaradda horumarinta beeraha Soomaaliland aad baan u soo dhaweynaynaa wasiirka iyo barasaabka iyo suldaanka aan ku faraxsanahay in horumarka inta leeg ay degmada ku tallaabsato soo dhaweynaa waxaan leenahay ku soo dhawaad kan ujeedkiisuna uu yahay wasiirku inuu soo dul kormeer uu ku soo sameeyo dhammaan deegaanadii uu ka socday mashruucan dhaqaaleynta ciidda iyo biyaha shalay oo maxay ahayd jimcaha wuxuu ka soo bilaabay deegaanka dila maanta wuxuu joogay xeego aad iyo aad baan ugu mahad celinaynaa wasiirku inuu maxay ahaydane mashaariicda gobolka ka socda isagoo oo maxay ahaydane safaradiisa iyo shaqadiisa ugu horeysay uu ku soo bilaabay insha Allah waxaan ka rajaynayaa inta ay ka badan wasiirkii saddexaad noo yimid waan sugaynay in badan baan sugaynay bal waxaan leenahay war waxaad maadada noo sidii noo qabta markaan iska hadlo waxaan keenay mashiinadan qamadiga gooyay waa weyn ee duuba markaa wixii kale la qabanayay wadanka gudihiisana diyaar baan u nahay inaan haddii ay barishada tahay haddii ay dhismayaasha tahay diyaar baan u nahay in wixii contribution ee maartay aan qabanayna meelo badan inaan ka qabanno oo halkana ku jirto oo maanta joogno bismillaahir rahmaanir rahiim sallallahu alayhi wa rasuulullah ilaahay baa mahad marka hore madashan khayrka badan la isku keenay dhammaan ehelka karamka la isku yimiday oo wasiirka horumarinta beeraha jamhuuriyadda Soomaaliland hogaaminayo barasaabka agaasimayaasha SSDF qurbo joogan oo maanta inooga yimid iyaguna hawl fiican inoo wada dhammaan inta halkan taalla waxaan leeyahay iyo wasaaradda beeraha intii la socota waxaan leeyahay salaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu waa run oo waxa weeye halkan waa xego waa degmooyinkii cusub degmooyinkii ugu dambeeyay weeye wasada la sheegay community-gu waxay dhiseen secondary-ga iyo dugsiga iyo xafiiska maamulka iyo maxaa la yiraahdaa MCH iyo madrasadda quraanka iyo masaajidka wax badan bay dhiseen khayr Allah siiyo wax badanna waa harsan yahay xukuumaduna waxa weeye iyaduna hadda insha Allah laga sugayaa waxay bilowday iyaduna xafiiskii beeraha way bilowday oo ka hadda socda intaas waa intii hore qabashadeeda inta labaad waxa weeye maanta socodka iyaga wuxuu daaran yahay horta dhawaan halkan waan ku soo noqon doonaa haddii Ilaahay yiraahdo waxa weeye wax la gali doonaa furitaankii in dhulka badan la dhisay baa la gali doonaa haddii la yiraahdo taa waxaan u sheegayaa dadkii dhisay ee qurbo jooga u badnaa habluun hormuudka ka ahaayeen inta hadda ka yimaado waxa weeye maanta halka socodkaygu waxa weeye waa SSDF oo runtii sanduuqa horumarinta jamhuuriyadda Soomaaliland ama saaxiibada Soomaaliland la yiraahdo dad badan ay ku Yurub dad gobol badan wadano badan Yurub ay ku midoobeen ayay qayb ka heshay xego waxay ka heshay magaalada samdaamiyadii bay ka heshay waxay ka heshay buuro bar laga xidhay ka heshay waxay ad wax badan oo cayankaas ayay ka heshay way istaba socotay mashruucuna runtii de waxa weeye kolba mar buu bilaabmaa waxa weeye wuxuu ka soo bilaabmay runtii meesha la yiraahdo dila oo qaybta hore lagu soo waday inta hadhay imika halkan socodka maanta guntiga gabagabada SSDF ninkii ugu sarreeyay baa maanta halkan socda ayaa halkan socda iyaguna haddii la yiraahdo maanta ayay waxa weeye bilaabaya taa wala inay ballan qaadaya waxa weeyaan de wax isdhimi karaa waa jiraan laakiin waxaan rajaynayaa wixii la inay ballan qaaday aad magaranaysaa hadda in wax badan aad ka dhawaajinaysay inta badan waxa weeye socodka imika wixii ka dambeeyo isagoo wasiirkuna iga dambeyn doona haddii la yiraahdo waxa weeye waa la helayaa annaguna waxaan u soconnaa waxa weeye waa inaad heshaan iyo soo dhaweynta madaxda inaan magaranaysaa maadaama maanta halkan la yidhi magaranaysaa laynagala qayb galay hawsha laynala qabanayo dee inaan shukran ilaahan soo raacno iyagana magaranaysaa soo horgallo ama weeyaan sida quruxda badan ee reexiga aad u soo dhaweyseen iyo sidaad isku agaasinteen iyo sidaad diyaarka u tihiin aad iyo aad baan igu bogaadinayaa waad ku mahadsan tihiin soo dhaweyntaana
waa tu hore aan iigu aqaanay maantana waad ku mahadsantihiin waxaan ku soo gunaanadayaa waxa weeye nin baa yidhi nin baa reer baan reer martuu soo hoytayo waa loo loogayo markaa rag ma joogin dee waa raagno waa riyalaan bay tidhi waxay tidhi waan raagno waa raglaan waa solay waa biyalaan wax badan bay gabadh fariida qof fariida meel lagama waayo hadday raageen SSDF hadday raageen wasaaradda horumarinta beeruhu qolo cusub oo dardartii wadato wasiir cusub oo muraa yimid markaa waxa weeye waxaan inii ogahay arkayaa aqoon aan u leeyahay maanta in haddii ilaahay xugmayo hawshaa iyada sida ugu dhaqsaha badan leh ay u dhaqaaqi doonto la horumarin doono waxa weeye wixii tamar dhigta mooyaane waxa weeye la qaban doono waxa suurtagala mashruuca socda laftiisa ama biyo xidhaanka ahaa ama buur xidhaanka ahaa ama samdaamiyada ahaa qaybaha caynka ahaa ama wadda ahaa waxa suurtagala in mashruuca iyo meesha kale awood bataa ayaa suurtagala haddii aad hadhow aad naga maqashaan inaan dhinac kale wax loo dhigay nin baa la yidhi warash xaggeed u gowracday ma nin baa hal rogan kara xagga ila dhacday buuri ogaada xaggay noola dhacday inu gowrici doona hadday warwasiir soo saama ayaa nilahay marka waxa weeyaan waxbay naga xumaan maayaan haddiina ku hadlayna waxa weeye raagitaankaa keenay oo waxa weeye waa raagid waxaan leeyahay waxaan kusoo guraanadaya hadalka waxa weeye aad iyo aad baad umahadsan tihiin waxaan kusoo dhaweynayaa wasiirka oo cusub oo weliba injineera oo muddo badan rag soo shaqaynayay howlo badanna dalka soo qabtay marka waxaan leeyahay wasiir kusoo dhawow la dardaaran alxamdulillahi rabbil caalamiin mahad dhammaanteed ilaahay baa iskale waxaynu mahadnaqaynaa dadweynaha xeego oo si wanaagsan oo ballaaran wafdiga uu hogaaminayo wasiirku u soo dhaweeyey wafdiga waxaa la socday agaasimayaal wasaaraddiisa ka tirsan hay-adda SDF oo mashruucan maalgelinaysay horumarinta beeraha ee biyo qabatinka iyo ciidda iyo biyaha dhaqaaleyntooda waxaa nala socday suldaankii beesha isna xeego waxaanu ku ammaanaynaa kaalinta ay kaga jirto horumarku waa inuu dalku wixiisa soo saaraa waxaynu ka cabannaa sixirbararkan innagaa soo dhoofsanna haddaynu bariiska iyo baastadaba iska dayno oonu shuuradeenni iyo galleydeenni iyo garowgeennu cunno dee sixirbarar bay samaynaa aragneen marka waxaanu leenahay kali sii dhowaado kaash karo unbaa beeraysaan iminka qudradunbaa beeraysaane war hadhuurkii iyo heeddii iyo sarreenkii iyo daafidii iyo waxaynu toobiya beertaba inoo beera oo aan isku filaanno oo aan ka maaranno bariis iyo baastiyo dumarkana waxaan leeyahay dumarow ragga idinkaa qaribayo hawlyaraanunbaa ku aragteen bahashan baaste 5 daqiiqo ku bislaanaysa oo shuuradu way yar hawl badatay idinna ragga ku qasba waxaa wadanigaa inay cunaanoo iska daaya bariiskan iyo baastan ayna daba wadaan haddaan noo karisan waanu iska cuni laynuun yeese laakiin nin bariis arkaya nin baa yidhi baa beri aabihiiyo mala askariya yimin baa la reerka kaasay hooyadii muqumad yar siisay odaygii isna waxa la war waxaraa kaxee marka kaxee laabuu soo celiya markii dambe islaanta ku qayliso soo yidhi anagu waxara muqumad arkayaan u taakaleynaa raggii bariis iyo baastaa dumarka iyo daacuni maayee dumarow noo kariya garowgii iyo shuuradii iyo sarreenkeennii noo kariya waan ku ammaanantiin wax soo saarkiina waanu idinku ammaanaynaa hay-adda iyo wasiirkana waxaanu leenahay waa aragtaan beeraha iyo dooxaha iyo dhulkaa bannaane aan weli loqodin waynu aragnaa waxaa baahidooda ugu weyn ay tahay halkii waddada naga yar xun waddadu hadday naga xuntayno kolley hadhuurkii yara xitaa naloo soo siday maalin dhaweyd gaadhiguu nala soo gaari waayo hargeysa waxa lagu rogay boorami dhibaatadaasaan na yar haysataa dhibaatada kalena haysataana waa tuumbooyinka oo nagu yar marka wasiir adii hay-adda SDF maanta waa maraysaan labada arrimoodna inaad si degdeg wax uga qabataan baanu doonaynaa والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين reer xeego oo uu suldaanku hormoodu yahay aad iyo aad baanu ugu mahadnaqaynaa soo dhoweyntii noo sameeyeen qalbi xaadhan waanu idinka mahadnaqaynaa halkan waxaanu ku soconnaa wasaaraddii horumarinta beeraha iyo SDF oo ah mashruucii isaguna horumarinta beeraha waxaana ila socda 3 agaasime oo ciidankii waan soo wada kaxeeyey waxaan u soo kaxeeyey inay indhahooda ku arkaan waxaanu qabanayno waxaa igula socda agaasimihii dhulka iyo biyaha waxaa ila socda agaasimihii qorshaynta iyo coordinationka
isku dabaridka waxay loo socdaa mashruucan SDF agaasimihii noo qaabilsanaa oo Ibraahim iyo Shaafi iyo Gaboobe waxaan u soo kaxaysanay waxa weeyaan inaan culays saarno sidii wax laydinku qaban lahaa mashruucan haddaad yara dhibsateen inuu dub idinka dhacay dub u dhici maayo dhaqso u bilaabmaya imaatinka aanu niminaa tusaale u tahay waxaanu bilownay ama aanu xadhigga maanta ka jarnay inaanu wasaaradda beeraha horumarinta beeraha aanu u dhisno dhismihii xafiiskii wasaaradda oo 3 qol ka kooban 2 musqulood iyo meelo ay fadhiistaan baabuurtu waxaa kaloo mashruucan uu ka kooban yahay in laydii xidho biyahan ciiddii kaxaynaya ama biyahan xoogga u socda la gaabiyo ciiddii la ilaaliyo oo aanay daad ku qaadan meelaha daad ku jarayna laydiin xidho beerihiina wax laga qabto marka waa mashruuc ballaadhan waxaa kaloo ku jira jidkaa laydiin soo maro idinkiiyo boorama u dhexeeya inaanu meela iyadana wax ka qabanno meelaha ugu culus ee aanu isleenahay waxbay maxayde baabuurtii bay dhibaysaa waxaan idinkula dardaarmaynaa waanu soo aragnay beerihii tacabkiinu waa wanaagsan waa dadaalaysaan annaguna waanu idinla dadaali doonaa waxaanu idinkula dardaaramayaa uun weli faanoole fari kama qodna weli halkii aan doonaynay maydun higsan inaad tacabka badisaan weliba dhallinyaradu ay beerihii dib ugu soo noqdaan annaguna waxaanu ku dadaali doonaa inaanu aqoontii idiin keenno oo halka aqoontii ama boorame ama hargeysa loo tegi lahaa inaanu beeraha idinku keenno tababaro laydinku sameeyo beeraha dhexdeeda oo sidaad u falan lahaydeen sidaad u beeri lahaydeen waanaanu soo aragnay waxaa kaloo nala socda madaxdii SDF oo iyaguna halkan joogay oo iyaguna indhahooda ku soo arkay waxaad qabsateen iyo waxaad u baahan tihiin in laydiin qabto waxaan idinkula dardaarmaynaa Jabuuti oo intaa idiin jirtaa dee ma laha beero waanay u baahantahay waynu isu baahannay suuqeena ugu weynina waa Jabuuti anigu waxaan rabaa haddii ilaahayna gaarsiiyo sanad ama 2 sannadood ka bacdi inaynu Jabuuti halka Itoobiya ka soo qaadanayeen ama Masar u doonanayeen liin macaanta inaynu ku dhaadhicino inagoo intan u jirnaa jidadkana aynu ka shaqayno oo wasaaradda jidadku iyada lafteedu way ku hor jirtaa in jidadkii la sameeyo si cuntadii aad beerayseen aad u geysaan ama Jabuuti ama Hargeysa ama Booramaba intaasba way idinka baahan marka tacabka badiya tacabku waa idinku yariyay intaanu soo aragnay mid iyo labaanu soo aragnay wax tacabkii xoog loo geliyay odaygan maxay Ismaaciil oo kale tacab badan buu geliyay beertiisa waanu soo aragnay marka beeraha badiya tacabka badiya dhulkii baynu haynaa ciidiyo wanaagsan baynu haynaa annaguna waa idin taageeraynaa waxaanu kaloo idinka siinaa maxay fariin madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland Muuse Biixi Cabdi oo isaguna u jeeday in tacabkii la badiyo waxa uu wasiirada u bedelayaa wuxuu doonayaa tacab in la badiyo ilaa uu la helo uu wadaya marka taana ogaada in madaxweynuhu u jeedo xagga tacabka marka tacabkaynu badinaynaa adduunkii waad la socotaan waa la xidhay bariiskii yaraa la xidhay baastadii la xidhay qamadidii la xidhay maxaa laga doonayaa inaynu kula soo baxno dadka ugu hor dhimanaya waa inaga haddaanaynu waxba beeran baddi way xidhmaysaa bad xidhan baa dhacaya marka waxaan idinku boorinayaa mar kasta mar iyo 2 iyo 3 ba beerasho wax tabca aynu barwaaqo gaarnay nahay dee reer dilaad waxqabad badan baa ka socda dee waxqabadkaana waxaan doonaynaa inuu dadweynuhu wixii la qabto inayna khasaarin kolley kafta kugu badan yahay waxaan laynoo qabanayo waxna way daba socda innagana waxbaa laynaga rabaa haddaan nahay reer dilaad wuu baxaya xitaa geerkiisa neefkaa ku noolaanayo xoolo way noo daaqaya faa'iido badan bay leedahay moogtahay marka waad ku mahadsan oo wasaaradda iyo hay-addu labaduba way ku mahadsan yihiin intaa un baan idiin sheeganaynaa inaad noo soo kordhisaan waxaan aad iyo aad ugu mahadnaqayaa wasaaradda horumarinta beeraha iyo SDF iyo hay-adda aado oo horumarkaa ballaadhan ka degma ahaan noo qabatay ilaa jaaraha horto ilaa dila area oo dhan maanta tacabka soo baxay tacabkii hore uu ka badnaanaya waayo xilxirka beeruhu biyihii baa loo qabtay dadkii baraagihii baa loo sameeyey marka waxaan aad iyo aad ugu mahadnaqaynaa hay-adda aado oo noo facilitate gareysay bismillaahi raxmaani raxiim
aad baa mahadsantihiin dhammaantiin wasiirka bartamaha gobolka iyo dadweynaha ka soo inoogu yimid shaqaalaha meesha jooga iyo ciidanka qaranka oo iyaguna nala socda aad bay mahadsan yihiin dhammaantiin marka wasiir iyo guddoomiyayaal annagu hawshan markaan bilaabaynay barasaabku xaadir buu ahaa una la bilaabo sidii buuna nooga warhayaayo kulli warka waan kala qaadanaa waan iska warhaynaa mashruucani haddaan warbixin guud ku siiyo wasiir waa mashruucii doraada joogtay shalayna joogtay unbuu ka mid yahay waa mashruuc ballaaran oo qaybta beeraha iyo biyaha iyo oo dhaqaalaynta ciidda iyo biyaha iyo bayskiisu yahay in ciidda la qabto biyahana la joojiyo ilaa laga soo bilaabo sidii ibraahim sheegayay ilaa laga soo bilaabo buur xoogga ilaa iyo halay ku dhammaanayaan oo fog inaanu samayno waanan ku tala jirnaa marka mashruucu wuxuu leeyahay kategori buu leeyahay iyo wakti dhammaad iyo bilowgu lahaa inaan ka hor dhammayno shaqaalaha iyagu oo waxay ay sameeyeen oon xawli ku dhaqaajinay mashruucii inaanu waktigii aan dedejinno waan uga faa'iidayno waxaan doonaynay saacadaha yaa nagu yaraa beeraha lagu qodo sidaa uu sheegay ibraahim saacadaha nagu yaraa intii beerooda markii hore xidhnay dadka waanu wada qodnay waqtaa maanta ku yaalla balkii marka wasiir aad iyo aad bay wasaaradda beeruhu hore noola soo shaqaysay adigoo sidii noola shaqaysa un baan filaynaa barta buu la shaqeeyey mashruucani markaa waxa weeyaan waa beeraha iyo biyaha iyo siirkii tuuliskii ilaa iyo xadhiggii xooga waxaa kaloo dheer xagga hayjiinka barkadaha waxaa la socda musqulaha la socda oo meel kasta barkad kasta oo 8 barkadood meel walba waxaa la sameeyaa 8 xabo 4 xabadood ayaa ku jira oo xagga sanitationka loogu talagalay oo si aan markii barkadii la dhiso meeshii biyo nadiif ay noqotaan markaa wasiir waxaa kaloo ku jira waxaan bambar protectionka xarigii oo ku jiraan gaabiyankii oo waxaa gaabiyanka inta badan waa xeego banirooshinku waa xeego iyo badan waxaa ku jira dhaamamkii weli waxu maqayin SDM ama sootay kaana in loogu daran wanaagsano baagdaana kuma wada wadne saan u dhamaystirno bahalkaan loogu daro wasiir dhaamamka marka way badnaayeen iminka waa bad yarayseene oo SDF yaraysay waa 4 xabba laga 4 xabbana in la saga daro 8 weeyaan lagu daro waxa doonta noqotay kaana ay wasiir loogu daro yaan doonaynaa oo annagu meesha aan ku maarano oo ku heshiisano marka ila xaggeega baashaas ay wada noqoto maanta marka aad iyo aad baad mahadsantihiin warbixiyeen way kala horeeyaan shaqadu way kala horeysaa xagga sare shaqada laga soo bilaabay oo godadka yareed dusha sare laga qabanayo way hakinayaan biyihii bay hakinayaan beerihii naxaradii baa la imanayaa naxarada marka la soo dhameeyo shaqada ugu dambaysa ee la qabanayay waa jeexjeexyada haddaanan biyaha laga yareynin iyaga kuma soo horreyn karaysid iyagu waa shaqada ugu dambeeya marka intii ka qorshaysnayd ee jeexjeexyada laga qorsheeyey way noo dambaysaa marka intaa sare oo la soo wada dhameeyo ayaa iyaga lagu dambeynaya marka waxa laga tegayo oo mashruuca intii nooga qorshaysnayd way qorshaysan tahay gaabiyankii uu yimiday ee lagu xidhi lahaa waa diyaar baa loo yahay marka intaa sare la soo wada dhameeyo halkaa hoose lagu dambeynaya laagaha marka saa ula socdo mahad dhammaanteed ilaahay iska nimcada iyo barwaaqada inagu kulmiyey wasiir waxaan marka hore wasaaradda beeraha uga mahadnaqaynaa horumarka ballaaran ee ay ka wado degmadan dira waxa weeye anigu waxaaban dee markaan maanta intaan soo arkay maalmihii hore isagoon bilaabmin baan imin meesha moodhal la qaato in waddanka oo dhan lagu fudiyo inay noqotoba sawirkan aynu maanta aragnay ayaa loo baahan yahay waxaan u mahadnaqaynaa hay-adda aado oo gacanta ku hayso hawsha ayana sidii loogu talagalay uga soo baxday sanduuqa horumarinta ee SDF-na aad baan ugu mahadnaqaynaa reer dilana waxaan leeyahay weel walba wixii lagu shubtaa laga shubtaa
waxaa laydinku shubtay waa aragtaan hadhow waxaa laga rabaa in laydinka soo shubto idinna ku talagala khayr badan baan idin rajaynayaa intaynu hadhayna taa uu ka dhawaajiyey guddoomiyuhu dilidee anigu reer baro markaan la kaftan waxaan ku dhaha diliyo boorame dilaan horbartay oo gaadhi bixi caalinaaba beri ku qallimay 60kii annagoo yaryarun baana laydhaa gaadhigii baa dila ku qallimay dila war diladuna maxay meeshan boorama nambarigaa maqal sanjiraan daahayna wax yar baanu hayn moogta waa 60kii markaa dili magaalo weyn oo caanay haydo ilaa waqtiyo hore la yaqaanay xaajiyadii waddankan aynu dee naqaanay reer galbeedka laga yaqaanay iyaguun baa xaaji xirsi iyo xaaji hadliye iyo xaaji nuur iyo may waa dadkii la yaqaanay hore reer dilay ahaayeen kowdhe maya dili weydin ka horreysay dilas laakiin waxaa laga yar raacay dagaalkii ay dheerkiisa oo qayn bay soo noqon waayeen iyaga intaas laga raacay moogta markaa barruun bay iska degeen magaalada xaggaas nooga rareen waxna boormay nooga guureen saasaan ku yar hagaasnay si laakiin arrinkan dhiida ah nimay qabanaynin wasaaraddu ma marinta wax isugu soo duubtay tiri degmooyinka iyo CDO dabadna waxa la xidhiidh degmooyinka cusbaa dhan bay nagu wada dartay qolaanu ka sarreeyno anagu biibaan daahayn insha Allah way soo noqon doontaa gudoomiye taana way dagaalkeeda waa galeynaa si laakiin waxa weeye waxay ku xidhan tahay wixii la inaga arko yaa islaamahan wax cuudiya ayaa waa ma habeen leeyahay waxay dhahdaan cudurkiina la arko caafimaadkiina hal arko reer dila haddii caafimaadkiina la arko degmada dhiidana waynu ka baxaynaa bidayna waynu helaynaa baynu iska noqonaynaa waa salaamantiin khayr badan baan rajaynayaa mahad leh ilaaha barwaaqada inagu simay iyo roobka iyo nimcada dhulka ka soo baxdaynu kala soo baxnay ilaahaasaa mahad leh waxaan kaloo mahadnaqayaa guddoomiyaha gobolka iyo madaxda degmada dila iyaguna dhowrkii cisho idinla joognay na berber taagnaa nala socday na horkacayay na tusayey meel kastoon u baahnaba hawlo culus oo waayeyna guddoomiyuhu saddexdaa maalmood aanu qaban annaguun isu kaya hawlay waan uga mahadnaqaynaa waxaanu kaloo mahadnaqaynaa bulsho weynta dila iyo jaaraha horoto ee sidaa mutadawacnimada ah u shaqeeyey waxaan saa u leeyahay waxaa laydin siinayaa waabuu yaryi laakiin dee mutadawacnimo iskaa wax qabsa ah ayaad ku shaqaynaysaan inaynu soo celino iskaa wax qabsadii oo isku duubni innaguna isku filnaano beerii la soo baxno waad ogtiinoo adduunkii u qaylada ka taagan laba daloo qamandida soo saaraya waa kuwa isku dhacay adduunkii oo dhan waa kaa qaylanaya labadaa dalba adduunka waa ku filnaa inaynu isku filnaano oo aynu qamandideenna iyo hadhuurhkeenna iyo galleydeenna iyo digirteenna aynu soo saarano tacab aynu jeesano oo tacabkii waa laga jeestayey aynu dib ugu noqono inagoo gamcaysaysanaa ka wasaarad ahaan waxaanu ku dadaali doonaa inaanu ka sii badino intana waa bilow inaanu ka sii badino ilaa inta laga gaadhayo isku filaansho cuntada ah xagga cuntada aynu iskaga filaano oo khudraddan iyo waxaanu beerayna waxaa ka horeeya dee horta inaynu la soo baxno maxay dhahay hadhuurhkii yaa shuuradii inaynu la soo baxno inaynu garowgii la soo baxno inaynu cuntadeennii aynu ku noolayn iyo caanihii aynu dib ugu noqonno oo aynu isku filnaano oo aanay waxba dabadda inooga iman inaynu u dhoofino oo jabuutidaa agteenna ah dee way u baahantay inaynu u dhoofino jabuuti oo etoobiya u dhoofino soomaaliya u dhoofino dee meelaha inagu xeeran oo dhani cuntay u baahan yihin cuntadiina dhulkaa quruxda badan iyo nabadgelyanu haysanaa nabadgelyadaana keenaysa inaynu maxay dahay cunto beeranno inaynu sidan isugu nimaadno nabadgelyadana inaynu adkaysanno oo qof kastaa nabadgelyada dhinaciisa ka ilaaliyo taasina waa muhiim oo aynu boliiskeenna caawino boliisku waa saaxiibka dadweynaha iyaga inaynu caawino oo aynu maxay u soo saarno hadhuurkii ay cuni lahaayeen oo awal waa loo dhigi jiray aynu saldhigyada u dhigna dee cuntada si ay iyaguna inoo ilaaliyaan oo aanay u gaajoon gaajada waa inaynu ka baxnaa waxbeera aynu ka baxno baahidan ina haysatee amahaan dadkaygo cunto dhabacda laga diro anka cagaraane ciidena hodanka mawsara kacnaayo beeraha
saracna amahaan dadkaygo cunta dhabada laga diro aan ka cagaraane ciidena hodan horumarta beeraha gobolka awdal dhammaan shaqaaluhu kusoo wada dhaweynayaan inta xaruntan gobolka ku sugan haddaan ka warbixiyo shaqaalaha gobolka ku qoran oo waxa weeyaan 66 shaqaale weeyaan 66kaasi uu dhammaantood waa wada payroll xafiiska saad soo aragtay wuxuu ka kooban yahay waaxyaha wasaaradda waa waliba waxay ku qoran shaqaalaheedii iyo xidhkeedii oo dhammaystiran bay leedahay degmooyinka waxaa jooga 4 qof oo shaqaalaha ka mid ah inta kalena waxay ka howlgalaan xafiiskan gobolka wasiir waan kugu soo dhaweynaynaa shaqaalaha gobolka waana kaaga mahad celinaynaa kulankaaga isbarashada shaqaalaha ugu timiday kolley wasiirku mahadsan yahay soo noo soo booqday mada wasiir waan ku faraxsanahay waan ku soo dhaweynaynaa kolley dadaal badan ba ka muuqda inaan fikir fiican iyo wixii aan tala haynana aan ku soo gudbinaa jecel waxaan farayaa asiduwa aqoon-yahankan fadhiya halka intii farsamo yaqaan ah inay u bataan xagga beeraha waayo waxaan soo marnay beeraleydii oo tacab badan geliyay dhulkii tacabkii ay geliyeen uu ka khasaaray badankiisu boqolkiiba 6 sababta uga khasaarayana farsamo xumo waxaan shalay soo arag eego inaan dhalinyaraa 19 jir ah beertii beeray tacab badan geliyey lacag wuxuu haystay geliyey haddana tamaanadii u baxaysay ay ka quruntay sababta uga quruntay ama uga babaaday ama cayayaan u galayna ay noqotay farsamo xumo iyo aqoon darro markuu 2 goor fasalka sidaa u sameeyo ay ka khasaarto maalinta dambe halkan uu idinku imanaya markaas aynu dhalinyaradii ugu hayn beerihii idinku waa inaad u tagtaan oo beertii loogu tagaa oo la baraa tikniiga wax loo beeray idinka loo baahnaa inaad wax bartaan u tagtaan la joogtaan anu ma jecli in loo bato isduwe in loo bato xafiiska aqoontan bartayse ma xafiis baan ku baabi'iya waxaan idinku boorinayaa hadday jiraan dee muujide ma garan karo hablahan iyo inamadani hor fadhiya inay farsamo yaqaana xagga beeraayiin garan kari maayo laakiin haddaad tihiin ma doonayo inaad fadhidaan xafiiska dadkiina u taga nolosha la qaybsada la jooga bara aqoonta transfer gareeya gudbiya taasaa maxay productionkiina inoo badanayaa cayayaankii iyo tamaandhadii ama baradhadii ama basashii inaga xumaan lahaydna aanay naga xumaanayn taasaan idinku boorinayaa waxyaabaan soo arkay weeyaan waxyaabaan horumar u gaari kari laanay weeyaan inagoo biyii haysana inagoo ciidii haysana inagoo dhulkii haysana inagoo dadkii haysana xoogii jiro haddana inaynu waxba soo saari weyno oon qalalno oon baktino oo malnutrition ina dilo waayaan daro waxaan idinku boorinayaa marka xigeen idinku soo noqdo inaad maxayda aan arko idinkoo jooga maxayda beerihii beero badan baan soo marnay intaasoo 100 oo beerood baan soo marnay qof aqoon-yahan oo dhex fadhiya ma jiro qof wax soo bartay oo dhex fadhiya ma jiro sideen wax soo saar ku sameynayna marka waanu idinla dadaali doonaa laakiin waxay ka tahay inaynu maxayda beerihii sayidka joogno insha Allah bidmilay kormeerkan shaqo ee wasiirka wasaaradda horumarinta beeraha ee jamhuuriyadda Soomaaliland injineer Cabdiqaadir Iimaan Warsame oo uu ku weelinayay barasaabka iyo mas'uuliyiin kale ayaanu intaa ku soo gabagabeynaa waxaana barnaamijka idin soo gudbinayay anigoo ah Abubakar Xasan Cafi waxaana igala qayb qaatay baahda warbaahinta ee gobolkan Awdal waxaan idinkaga tegaynaa sida iyo nabadgelyo iyo kulanti dambe oo wacan